kulanti wacan wanaagsan dadkaana dhageysanayo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa madasha 60 oo aan idinka soo gudbin doono waraysigan idinku soo fool leh oo uu marti noogu yahay aqoon-yahan Faysal Cabdi Rooble oo ah siyaasi ka faallooda dhinaca arrimaha siyaasadda geeska Afrika. Los Angeles, California ayuu degan yahay. Khadka telefoonka ayaan ku waraysan doonaa. Marka horese aan soo dhaweeyo oo ilaa ku soo dhawo madasha 60 aqoon-yahan Faysal Cabdi Rooble. Harari aad iyo aad baan u dhowahay runtii aadna waa u faraxsanahay adigoon ogahay inaad rugcadaa journalist aad tahay dadka ugu cadcadaana Soomaalida journalismka. I'm very honored aad bay sharaf ii tahay caawa in aynu madashan wadaagno labadeena. aad iyo aad baan kugu mahad celinaya aniguna. Faysal waxaana dhegeysanaya dad aad u fara badan oo iyagu madasha ku jira amaba kamid ah iyo dadweyne kale oo iyaguna hawada inaga daawan doona amaba barkulanada dhinaca social media. Dhamaantoodba waxaan usoo gudbin doonaa dagaalka ka qarxay dhawaanta meesha ama deegaanka lagu magacaabo Tukaraq kaasi oo u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland. Marka ugu horeysa aan ku weydiiyo dagaalka Tukaraq Faysal xaguu salka ku haya? runtii sideedaba dagaaladu laba sifood ayaa loo sifeeyaa. sifaha hore waxa weeye waxa dow marka loo ugu abtirinayo ama lagu soo qabanayo dagaalka inay sababeen iyo waxa la yiraahdo underlying ama waxa hoos yaala dabka hoos yaalay muddo dheer oo shidayay dagaalkan inuu dhaco. kollaba hadda dadku markay si degdeg ah u fikiraan waxay arrintan ku soo qabanayaan is-afgarashawa ka dhex yimid labada maamul ee Puntland iyo Somaliland oo Garowe iyo Hargeysa kala fadhiya. taasi waa sida fudud ee loo sharaxayo, laakiin arrimaha hoos yaala dabka meeshan shidayay anigu sidaan u arko maantana maqaal aan gabagabeeyay oo Wardeer News berri ku soo baxaysa waxa weeye u dagaalanka ama kuloolanka gobolka Sool, Sanaag iyo Cayn waxay ka turjubaysaa loolanka lagu hayo dib u yagleelka ama jiritaanka ama jiritaan la'aanta dalkii aynu odhanaynay Soomaaliya. marka sidaan ku magacaabay title-ka The Conflict of Soul is a conflict over the soul, nolosha soul nafsigii of Somalia. marka waa dagaal sal ku haya arrinta culus aan sheegay. maxaa xilligan keenay marka in la dagaalamo ama uu dagaalku qarxaba? waxa xilligan keenay horta haddaad dib u raacdo labada madax haddaynu hadda ku soo noqono Cabdiweli Cali Gaas oo madaxweyne ka ah Puntland. anigu waa la kulmay May 2015 oo hadda dagaalku markuu qarxayo 3 sano laga joogo. arrintaa waan weydiiyey wuxuu ka damacsan yahay la sacaanood. si cad wuxuu igu sheegay inaanu dagaal niyad u hayn, calool u hayn, aanu gelin, isagoo dhowr sababood sheegay ama dagaaladii galgala kaga socday ha noqdaan ama isagoo xilliga aan isku hubin gaalkacyo dhinaceeda ha noqoto, laakiin muddo dheer nin dagaal diyaar u ahaa maaha. hadda waxa keenay runtii baarqab Hargeysa ka soo baxay oo Muuse Biixi ah oo runtii nin military ah oo isaga militarinimadu ay tusayso fakar ah wax ama waa la badiyaa ama waa laga badiyaa. asagoo taa aaminsan ayaa waxa uu ka caajisay waxaan ugu tilmaamay anigu is-afgarashadii ka timid haysashadii la sacaanood in Somaliland la sacaanood ay iska haysato bartaana lagu kala joogo buu Muuse ku qanci waayay. marka waxay noqotay in uu soo afxidho wuxuu isaga Faysal Cali Waraabe ugu tilmaameen xadkii Ingiriisku ka tegay si ay mar dambe uga dhawaajiyaan raadista iyo soo afjaridda ictiraafka loo raadinayo Somaliland oo Soomaaliya ka go'aysa. marka xilliga waxa keenay iyagoo boorka ka duuliyay arrintaas muddada soo jiidanaysa. aan eegno deegaanka Tukaraq maxaa Faysal oo ka jira istiraatiiji ahaan waa meel ceenkeeya maxaad leedahay ayaa dagaalkaasi lagu qarinaya oo u hooseysa labada dhinacba waa sidee Tukaraq? 3 arrimood ayaan si degdega ugu taabanaya 3 factors. Tukaraq waxa lagu sheegayaa inay ahayd meel kharash iska laxaadle uu ka soo gali jiray customka meeshaas ku yaala oo qolyaha gaar ahaan sool ka soo jeeda ee Garowe fadhiya
siyaabo badan ay isha ugu hayeen kharash ka soo jeeda. taasi waa sababta khafiifka ah oo Somaliland ay istiri meesha ka xidh waxa meesha ka soo galana adigu qaado. taasi waa kow. tan labaad waxa weeye tukaraq iyadoo ah magaalada ugu dambaysa ee Yooca ka soo xigta dhinaca bariga oo ah xadka ay ku taamayso Somaliland inuu yahay xadka kala qaybiya British Somali Protectorate wixii la oran jiray iyo Italian Somaliland oo laba xadkaasi yahay. tan saddexaad oo tukaraq hadda waqtigan keentay waxa weeye geopolitics-ga ama ishardiga siyaasadeed ee ku aadan khayraadka holol iyo goboladaas nugaal yaala oo tukaraq ay u tahay meesha magaalada noqonaysa haddii khayraadkaasi soo baxaan meesha laga maamulayo qalabka la geynayo operation centerka u noqonaysa khayraad aad u badan oo lagu sheegay holhol iyo agagaarkeeda iyo nugaal oo intaa biicadda ay tukaraq ku fadhido ayaa haddadan waqtigan oo ay kulushahay istiraatiijiyadda tekada berbera xulifaysiga aynu hadhow ka hadli doono oo dhinacyo badan gala Yurubna gala ayaa hadda keentay. waayahay mar haddii aynu ka hadalnay khayraadkii waddanka iyo weliba gaar ahaanna dhinaca shidaalka hol waxay u jirtaa 70 kilomitir tukaraq haddii aan eegno xiisaha loo qabo in shidaalka lala soo baxo oo kambaniyo xidhiidh ay la yeelato Somaliland waa sidee saamaynta ay ku yeelanayso shirkadda iyaduna beryahan dambe aadka u dheeraynaysa ee waddanka UAE ee DP World lagu magacaabo oo iyadu ka karaysatay 30 sanadood dekada berbera oo kale saamayn inta leeg bay ku leeyihiin DP World kambanigaasi in hol iyo areadeeda shidaal laga baaro. saamayn xoog la ayay ku yeelanayaan. cali waxaan jeclahay adiga iyo dadka dhageysanaya inaan la qaybsado. Soomaalidu waa degataag aad wax u fahamta. nin cali masruul la oran jiray oo geeriyooday oo qoraayada Afrika ugu weyn ahaaba wuxuu ka sheekeeyay Soomaalidu 1940skii markii dagaalkii adduunyada labaad socday Mombasa sida ay radioga degta u saari jireen isla markaana tafsiiraad ay uga bixin jireen ishardiga adduunka. waxaan taa u sheegay waxa weeye muddo dheer baynu dadka Soomaaliyeed makhaayadaha shaaha ku cabaya ama Hargeysa ha noqoto ama Garowe ama Ceergaabiya meel kaleba ayagoo arrimaha ka hadlaya aynu maqalaa laakiin inta badan uma qaadano wax weyn. runtii waxay dareemayaan waxba ka jira waxa weeye xulifaa soo baxday hadda oo dhinaca ay israacsan yihiin Norway, Ethiopia, Kenya, United Arab Emirates oo qoladaas hadda ay ku xidhan yihiin maalgashiga berbera iyo khayraadka laga filaya hadda in laga qodi karo goboladaas la isku haysto ee Sool iyo Nugaal. dhinaca kale dalka ugu weyn ee Yurub hadda waxa la sheegayaa walba in Sweden yahay qatarna la filayo inay dhinac kaga jirto. haddii aad arrintaa kala qaado oo dalalku saa u qaybsan yihiin marka aynu Soomaaliya shakhsiyaadka hadda wada aynu ku noqono baa haddana wixii isku darmayaan waxay isugu darmayaan waxa weeye prime ministerka oo kale waxa la sheegi jiray inuu Norway aad ugu xidhan yahay inuu hadda Ethiopia gacan saar fiican la samaynayo in haddana dhinacyo kale ay ka soo kala horjeedaan United Arab Emirates qatar oo inuu hubno meesha ay ka soo jeedo. marka khayraadkan la isku haysto ee Sool iyo Nugaal iyo Soomaaliya qaybta waqooyiga aynu oran jirnay ka jira way ka ballaaran yihiin Puntland iyo Somaliland oo iyagu siyaasado kale oo intaa inooga ballaaran ba hadaynu Soomaalinahay oo khayraadkan hadda meesha yaala ka ballaaran iyana la isku hayo meesha. waayahay isla tukaraq areadeeda markaan eegno waxaan doonayaa iyadana bal inaynu ka hadalno saamaynta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn oo dadkoodu ay yihiin deegaan ahaan dadkii iska lahaa tukaraq iyo inta u dhowba. marka la eego dadka reer Sool, Sanaag iyo Cayn waxay u noqonaysaa buundo u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland. ilaa iyo Faisal inta la ogyahay 100 qof ayaa haatan ku naf waayay oo ku dhintay dagaaladaasi badankooduna waxay ka soo jeedaan gobolada aan magacaabnay Sool iyo Sanaag iyo Cayn. ma la oran karayaa dhinac marka laga eego Somaliland iyo Puntland isma bahayse dagaalku wuxuu ku socdaa reer Sool iyo Sanaag? horta oo dagaal meel laba dagaal markuu meel ka dhaco laba kooxood ayuunbaa horta wax ku noqda. kooxda weyn ee aad wax ugu noqota ku barakacda baaba iyo dabku ka soo gaadha waa shacbi weynaha oo nolol maalmeedkoodii iyo meheradii iyo guriyihii ay deganaayeen ka burburayaan
wakti dheerna ku qaadanaysa inay dib usoo dhisaan dad marka horeba tabcaan ahaa. taasi waa halkeeda. tan kale oo ah in ay labada ciidan ay ka soo baxeen intooda ugu badan sool iyo sanaag iyo cayn, waxbaa ka jira oo biicad marka lagu dagaalamayo dadka la xulo ee inta badan la recruit gareeyo ciidamada laga dhigaana waxay kollaba sideedaba general u bataan gobolka iyo biicadda dagaal ka dhacaya. tanna waynu hubnaa, sheekooyin badanna waynu maqlaynaa in eliidka ka soo jeeda sool gaar ahaan sool dadka la yidhaahdo waxgarad weeye kasoo horjeeda in ay si xun ugu kala qaybsan yihiin kana la raacsan yihiin dhinaca Garowe iyo dhinaca Hargeysa, maalgelinna labada dhinac iyo propaganda labada dhinacba laga wado. marka aad ka timaado waxyaabaha Soomaalida inta badan aynu ku sheekaysano oo qofku ama Puntland raacsan yahay ama Somaliland raacsan yahay, lazman waxa meeshan tala xumo ay haysataa runtii ciilkaambiga weynna ka imanaya, dagaalkuna uu waxyeelaya iyo saraakiisha ku dhimanaysa inay u badanayso dad biicadda aad sheegtay kasoo jeeda. waaya dhinaca Puntland ayaynu eegaynaa. sidaan la socono madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa la doortay muddo 4 sanadood ah, waxaana haatan u hadhay qiyaastii ilaa iyo 6 bilood. sidii hadalkaaga ku jirtayna waxaad sheegtay amaba uu kuu sheegay inaanu diyaar u ahayn xilligan in uu dagaal galo oo gaar ahaan gobolka Sool amaba magaalada Laascaanood iyo inta la halmaasha. Cabdiweli iyadoo ay 6 bilood u harsan tahay maxaa keenay xilligan in uu dagaal galo, waliba dagaalku dhinaca Puntland uu ka leeyahay dardar ama xoog la dareemi karayo? maxaa Cabdiweli xilligan ku dhaliyay oo uu damacsan yahay? sababta weeye taan doonaya. sax, sababta number 1 waxa weeye kolba hadda sida ay u badan tahay in Cabdiweli waxa af Ingiriisiga la yiraahdo Johnny come late, in ay qasab ku noqotay dagaalkan oo dadka reer Puntland shacbi weynaha madaxda dhaqameedyada iyo siyaasiyiintii waanu ka madax banaanayna Cabdiweli hadduu dagaalkaas uu dhinac ka mari waayo madaxweyne ku-xigeenka in Camay oo ah nin Sool ka soo jeeda xil canaan badanna aad iyo aad uga timid qaybta uu ka soo jeedo. faagtaro noocaasa oo Cabdiweli oo markii hore cagajiidayay isagoo 6 bilood u harsan tahay qasab kaga dhigay. waxay noqotay in dagaalku iska socdo oo talo ku yeelan oo inaad la socoto mooye Hereeri inaad la socotana waan ogahay baan u malaynayaa, asagoo weli dagaalka calaamadayn in uu bilaabmay dhaqdhaqaaq ama qabiil ha ku salaysnaado ama xooga maleeshiyada iyo askarta Puntland ha ku salaysnaado. laakiin waxaad moodaa mar gaar ahaan bilihii hore ee tukaraq dagaalku markuu ay soo weerartay Somaliland in laga tashaday. Cabdiweli marka waxay u sinaatay inuu ku soo boodo uu qabsado faa'iidada ka soo bixi doonta hadhowna uu ku meel maro iyo inuu ka joogo. marka madax ahaan wuxuu door biday inuu ku soo boodo kamidna noqdo haddana si dardar xoogan oo laga filayn madaxweyne Cabdiweli Gaas uu dagaalkii ugu jiro. marka imposed waxa la yiraahdo in laga dhigay baad moodaa. waayahay su'aal kale haddii aan taa kugu laro waxa weeye isaguna madaxweynihii hore Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo haatan kamid ah aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo imika ku sugan magaalada Garowe ayaa saameynta uu dagaalka ku leeyahay marka loo eego Faroole isagoo isu arka inuu yahay zaciim reer Garowe, inuu yahay masalan shiikhoodii ama zaciimkoodii ayaa waxa uu dhowr jeer isagoo hadlay hadallada ku cadeeyay in dagaalka Cabdiweli aanu ahayn dagaal xaqa ama saxa ee ay tahay inaan dagaalka la gelin. marka loo eego hadalka iyo miisaanka Faroole uu ku leeyahay Puntland meel la oran karayn marka dagaalka laftiisa Puntland way ku kala qaybsan tahay dhinaca afkaarta ee gelida dagaalka. maxaa oran waqti sax waa su'aal aad u fiican. waqti xun buu dagaalku ku yimid gaar ahaan madaxweyne Cabdiweli Gaas oo ah xilli siyaasadda Puntland ay qarxi rabto election ku soo dhow yahay isla markaana Cabdiweli canaano badan ay ka soo gaadheen 4 sano iyo barkii uu meesha hayay meeluu qabsadana uu leeyahay. siyaasaduna wasakhad weeye oo Faroole iyo kooxdiisu godoloolo ayay ka heleen arrintaas. u malayn maayo inay Faroole niyad ka ahayd markuu lahaa Puntland way ku qaldan tahay dagaalka, sababtoo ah haddii Muuse Biixi iyo Somaliland madaxweyne Muuse Biixi iyo Somaliland ay ku guuleysato dagaalka 2 arrimood ayaa dhacaya. kow, arrintii weyneyd ee ahayd soo xidhka iyo soo afjaridda xadka Somaliland ay ku taamaysay oo dhamaanaya,
legitimacy weyna ay ka helayso arrinta somaliland. taasi waa kow. ta labaad 70 kilometer bay u jirtaa Garowe iyo wax lamid ah. marka hanjabaadii Faysal Cali Waraabe ee oran jirtay markaanu rabno ayaanu garaaci karaa ama aanu gacanta ku soo dhigi karaa Garowe ayana meesha way soo gashay. marka haddii anigu waxaan isiri Faroole political gafka ugu weyn uu galay waxay ahayd arrintaas, sababtoo ah haddaad idin ka tagto arrinta dhaawaca iyo dadka ku dhimanaya meesha political ahaan iyo nin siyaasadda ku jira ogna siyaasaddu waxay tahay ciidamo ay reer Puntland ay u arkaan inay hadii jeer sardi ka dhaxeeyo oo 70 kilometer u soo jirsatay magaalo madaxdii Puntland ay lahayd waanu iska maamulaynaa. runtii strategically waxay ahayd arrin khatar ku ah Garowe. marka nin kastoo siyaasi ah haddaanu dan gaara ka lahayn arrinta inuu dareemeed. marka anigu inkastoo Faroole aad u quweeyo arrintaas waxay ahayd baan u malaynayaa gaaf waxa la yiraahdaa ama gafkii ugu weynaa uu ka sameeyay siyaasadda gobolkiisa. iyadoo dagaalka lagu soo galay ama uu ku bilaabmay in uu u dhexeeyo Somaliland iyo Puntland ma la oran karayaa dhinac kale wuxuu ogyahay mid beeleed oo ay isku hayaan Hargeysa iyo Garowe? runtii waa la oran karaa rhetoric ama hanjabaadaha dhinacyada badan ka imanayana labada dhinacba waad dareemaysaa. isla markaa waxaa jirta aana qabiileed oo gobolkan ku ragaaday gaar ahaan Puntland iyo Somaliland marka la eego. laakiin waxaas waa waxa beriyo hore wax ka qoray oo amxaariga anoo ka soo amaahanayo wax la yiraahdo dahabka iyo xumbada. waxaas waa xumbada, waa xumba taasi, because dadka Soomaaliyeed ama qabiilka Puntland ugu badan iyo qabiilka ugu badan Somaliland waa dad isdalay, waa dad isjecel, waa dad runtii marka ay shaah wada cabayaan aad moodo dhaqan ahaan inay dadka kale iska xigaan. marka anu uma qabo in colaad ka dhaca aad ka dheer uga dhaxayso. waxa weeye arrimo siyaasadeed iyo u dagaalanka nafsiga Soomaaliya iyo nafsada Soomaaliya la oran jiray. hadduu qofku conscious ka yahay iyo haddaanu conscious kaba ka ahayn, hadduu hubo iyo haddaanu hubin labadaba, qadiyada weyn ee Muuse Biixina dhinac wato dhinaca kalena ka soo jeeda waxa weeye arrintaas. haddii arrintaa laga heshiin lahaa Caliyow, anigii adiguba inagoo dhaqan ahaana aad iyo aad u naqaano dhinaca waqooyiga, waxaan qabaa in idin laga heshiin lahaa Sool iyo Sanaag iyo Cayn meesha kala raaci lahaayeen, ama dhaqan ha loo eego ama biicad ha loo eego ama dhaqaalaha loo eego. detail waxa la yiraahdo bay noqon lahayd dhinacay raacayaan. laakiin arrinka ugu weyn waxa weeye waxaan ugu tilmaamay to be or not to be part of Somalia. inaad ka mid noqoto inaanad ka mid noqon Soomaaliyadii 1960gii la abuuray. dagaalka arrinta ugu weyn ee xanafta beeraysa ee kolba la isku qabsanayo arrintaas weeye. si kale marka loo dhigo dagaalku Faysal ma wuxuu u dhaxeeyaa Muuse Biixi iyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, mise uu ka durugsan yahay, uu ka fog yahay? haddii aad ka wado macnihii xoogo kale oo xagga Soomaaliya ka imanaya ma jiraan. horta ilaa imika caddayn ma hayno. dowladda Farmaajo, Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Cabdiweli Gaas hadda iskuma wanaagsana, xaalkoodu meel aad u khadhaadh buu marayaa. haddaanu dagaalkani dhici lahayn waxay ila tahay attentionka ama focuska ay Puntland haysato waxay saari lahaayeen siday ula dagaalami lahaayeen Muqdisho. haddana maanta arrintaa waxa kaga dhawaajiyay isagoo si kale u hadlaya ina buuba oo ah ragyowga aan u malaynayaba kolba dhinac intay u wareegaan qadiyadan Soomaaliya degila dadka shidaya inuu one of them ka mid yahay. u malayn maayo in hadda Soomaaliya gacan ay ku leedahay. intelligence-gaana ma hayno. dhowr qof oon la hadlay oo Washington joogaana arrintaa way ka biyadiideen oo xidhan waxba kama jiraan. laakiin propaganda machine-ka ayaa wuxuu tilmaamayaa in Farmaajo askartiisu ay soo galeen. maalin dhawaa ogtahay journaalka Al-Ayn la yiraahdo oo Abu Dhabi ka soo baxay Dubai inuu qorayba in Farmaajo uu soo hubeeyay argagixisada caalamka ee ISIS ka mid tahay si ay Somaliland ay deganaanshaha ugu diidaan. dagaalku Muuse Biixi iyo Cabdiweli labada madax ayaa ka madax ah. dagaalka hadda socda ayagana ka mas'uula dhimashada, dhaawaca iyo burburka ummadda ku yimaada. labadooda administration ayaa ka wakiila. dagaal hadduu dhaco Caliyow, it's very difficult in la yiraahdo hebel baa gardaraa iyo hebel baa gardaraa. that's why reconciliation inta badan waxyaabo badan u xeeriyo. laakiin labada qof ee maanta kursiga madax ugu fadhiya dagaalka maalayacniga waxa weeye
madaxweyne muuse biixi iyo cabdiweli gaas anigoo weliba runtii eedda badan saaraya dhinaca madaxweyne muuse biixi oo jebiyey bitantee waxaynu nidhi ama is-afgarashadii ahayd in la sacaanood lagu ekaado ilaa waktigii rayaale ilaa seelaanyo oo muddo dheer aada ogeyd in la sacaanood loo puntland ay waxba ka qaban weyday ugana hadday waaya arrinkaa waan usoo noqon doonaa su-aal kale ayaan rabay inaan kuweydiiyo ah kaalin la tebayo oo beesha caalamku ay ku lahayd kala celinta iyo inay kala dhex gasho labadaasi maamul waxaad moodaa inay haatan meesha ka maqan tahay waa maxay sababta dawladaha jaarka ama ha noqdaan ama kuwa kale caalamka ha noqdaan be ay usoo dhexgeli laayihiin somaliland iyo puntland oo maalin walba uu dhiigu daadanayo haatan ilaa iyo 100 qof ay ku dhinteen boqolaal kalena ay ka qaxeen meelihii ay ku noolaayeen oo colaad xoog leh ay ka aloosan tahay dhulkaas horta intaanu dagaalku qarxin waad ogeydo kiitin labada magaalo madaxba waa tegey puntlandna waa tegey garowana hargeysana waa tegey somaliland wuu isku yardaya waxoogay laakiin xoog weyn oo waa runta united nationka iyo qaramada midoobay intuu tago qaraar laga soo saarayo iyo isagoo ku kicinaya deeqbixiyayaasha ma ay dhicin recommendationka aan soo wadana waa ku jirtaa waxa weeye caliyo waxa dhacay noloshii laba arrimood kow nolosha soomaaliga ayaa raqiistay sida halkan aynu u aragno madowga noloshiisu inay aada u raqiistay nolosha qofka soomaaligu raqiis bay noqotay because sababo badan oo maalayacni ayay ku dhintaan haba ugu sii daraadaan kuwa meelahaas hadda jooga aynu ka hadlayno taasi waa kow tan labaad oo iyana meesha ku jirta oo loo tami laayahay waxa weeye dalalka inagu xeeraysan ayaa double face ah ama ethiopia ha noqoto ama jabuuti ha noqoto ama kenya ha noqoto iyo igaada ay wataan oo laba afla ah laba wajiilayaal ah oo soomaaliya marna godka ku rida marna iska dhiga adduunka inay godka kasoo bixinayaan iyo tan saddexaad oon jeclahay inaan ku daro oo ah waa laga daalaa dagaalada marka ay noqdaan skirmish wax taagan oo had iyo jeer ku dhufo oo ka carar ku dhufo oo ka carar dadka mediationka ama dhexdhexaadinaya waxay gartaan in wax maanta iyo berri aanu dhamaanan yahay markaa sida carruurtaada oo kale oo isdilaysa baa mararka qaarkood waxa la yidhaahdaa ha daalaane baldaa waxaan u malaynayaa united nationku inay tiri bal ha daalaan oo waxay ka qaadaan inu aragna hadhow markay daalaanna aynu dhex galno mahadsanid dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaani waa madasha 60 oo aan idinka soo gudbinayno waraysigan ku saabsan arrinta amaba dagaalka tukara ka aloosan waxaa marti noogu ah sida aad la socoteenba aqoon-yahan faysal cabdi rooble oo isagoo ah siyaasi aada uga faallooda arrimaha dhinaca siyaasadda ee soomaaliya waxaa dhinaca xidhiidhinta inoo qaabilsan waanu halkan ugu mahad celinaynaa asadna oo isagu markaas inoo suurtageliyey in waraysigani uu dhegahiina soo gaadho aan ku noqono mar kale faysalow su-aalaheeni aan eegno dhinaca somaliland oo kale waxaad moodaa madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo haatan ilaa iyo 6 bilood ninka maamulaya somaliland in ay ka muuqato hab askarinimo hab abuuri karta colaad dalalka ama ay jaarka yihiin ama maamulada ay jaarka yihiin waxaa ka muuqata had iyo jeer daandaansi xoog leh waxa uu dagaal galay dalku dhowr jeer oo isku dhacyo ay ka dhaceen isla somaliland sidaan la soconona eergaabo durba 2 beelood ayaa markii saddexaad isu qoriya qaatay oo rag iska dilay waxaa iyana jirta kala qaybsanaan dhinaca siyaasadda ah oo xisbigii wadani iyo intii la hayb ahayd ay markaasi iyana gooni doonayaan inay u shiraan oo ay arrimaha somaliland ka shiraan madaxweynahan cusub ee muuse biixi cabdi sidee buu kula muuqdaa muuse waxay ila muuqdaa 2 arrimood oo la rabay in laga ilaaliyo madaxweynayaasha soomaaliya oo dhanba gaar ahaan meelaha dagaaladu ka dhaceen ayuu 2 factor ama 2 dabeecadood ayuu muuse leeyahay mar waa military oo logica iyo sida uu wax u analyze gareeyo iyo sida uu wax u sharaxo ay ka imanayso xeelada ciidamada oo ah qofka aad necab tahay ama kaa soo horjeeda ama aydan isku qadiyadahayn waa la jebiyaa waa tii Colin Powell uu oran jiray waa inaad qofka ka xoog weynaataa completely inaad ka adkaasato taas waa midda labaad waxa weeye madaxweyne muuse biixi wuxuu aad iyo aad u cabay welina dhiiggiisa iyo systemkiisa ku jirta jabhadnimadii muddada dheerayd uu ahaa jabhadnimaduna usually qofka bini aadmiga waxay ku beertaa waxa la yidhaahdo radical ama mayay adag xag jir marka madaxweyne muuse biixi durba dhibaatooyinkan la soo darsay
waxay ka turjumayaan inaanu wax ku raadin the art of politics waxa la yidhaahda ama farshaxanka siyaasadeed qadiyadaha kuma xaliya wuxuu ku xalinayaa art of military dagaal qofka caburi muquuni dabadeedna mufgare marka runtii 6 bilood oo waqti gaaban ah Djibouti way isku dhaceen Puntland oo ditanteegaasi ka jiray way isku dhaceen gobolada aad sheegtay oo runtii markii ugu horeysay intii Somaliland la yagleelay dadku ay saa u kala fogaadeen nasiib daro arrin laga naxana ah oo bari iyo galbeed loo kala jabo taasna Muuse ayaa maanta loogu aaneynaya marka wax ka imanaya dabeecadihiisa iyo soo kobcinta uu soo kobcay sidoo ku soo kobcay way aad baad mahadsan tahay aynu eegno dadka iyo shacabka u dhashay gobolka Sool Sanaag iyo Cayn oo aynu hore u sheegnay in dagaalkan uu saameyn weyn uu ku yeelanayo inagoo og in dhiig daata iyo dagaalo la isu qoriyo qaataa aanay wanaag waanu ka iman amaba aanay markaasi faa'iido iyo guuli ku jirin dhinaca kale markaynu ka eegno Faysal dagaalka ka qarxay dhinaca Tukaraq ee haatan ama gobolkaasi Soolba ha noqday dhinaca marka laga eego wanaaga uu keeni karayo ma la oran karayaa waxa ka iman karaysa in dadka gobolka u dhashay ay markii hore ku kala afkaar duwanaa Somaliland iyo Puntland ay raaci lahaayeen iminka in hal meel ay isugu ururaan marka loo eego dhiiga daadanaya dagaalada saameynta ay shacabkii saameynayso in iminka weji cusub ay la yimaadaan oo ay dhinac isu duwaan suurtagal ma tahay ha horta runtii waa su'aal aadi waa su'aasha gabagabada baan u malaynaya arrintan dagaalka ma aha discussionka laakiin gabagabada arrintan dagaalka waxa way kow waqtiga xun uu madaxweyne Muuse Bixi uu dagaalkan qaaday waxa weeye haddii uu Muuse Bixi dagaalka uu meeshuu rabay gaarsiin waayo uu Garowe agagaarkeeda soo taaban waayo Somaliland wuxuu ku keenay waqcad weyn iyo haybad awal lagu tuumayay oo meesha ka maqnaanaysa marka he's a loser that's number 1 haddii uu taag keeni waayo tan labaad waxa weeye wuxuu arrintan ku raadinayay in ay statuska Somaliland kor u qaado oo adduunku arko sidii nin xuno Swedish uu khudbad ka jeediyay Hargeysa uu lahaa waxaad noqoteen Somaliland iyo the good guy ninkii fiicnaa ee gobolka deganaa qof xun noqda sida la idin ka baqo oo dagaal aad oogtaan oo marka adduunyadu tag taasna uu ku dhaqaaqay laakiin adduunku hadda Somalilandigi nabadgelyada ahayd waxa loo tilmaamayaa inay iyana dagaal ku jirto tan ugu dambaysa oo muhiimka marka arrintani degto anigu waxaan qabaa waxa ka faa'iidaya dadka Sool Sanaag iyo Cayn oo arrimo badan ay meeshan kaga xidhnaayeen kow discussionka dooda Soomaaliya had iyo jeer Sool Sanaag iyo Cayn wax lagu lifaaqo Garowe ama lagu lifaaqo Hargeysa ay ahaan jirtay dagaalkani markuu dhamaado narrative-ka ama dooda iyo wada sheekaysiga Soomaalida iyo adduunka kaleba ay sheekaynayaan waxba iska bedelaya oo noqonaya inay iyagu center stage-ka u noqdaan discussion-kana iyagu wataan taasi waa kow tan labaad rajada weyn ee la qaba waxa weeye in dagaalkani uu diirka ka siiba caliyow qolyaha madaxda isku tilmaamaya ee gobol laba magaalo madaxyada kala fadhiya ee shidaya arrimahan ummadan Sool iyo Sanaag iyo Caynna ay aad ugu gubatay uguna baabaaday 30 sanana ay dadka ka hadheen aan noqoto xagga iskuulada dhakhaatiirta baayac mushtarka everything marka arrintani waa arrintii loo odhan jiray bakooradii awrka dhabarkiisa jebisay bakooradan hadda dhacday ee Tukaraq waxyaabo badan bay jebinaysaa waxa kamid ah inay jebiso inay shaarka ka saarto danaystayaasha gobolka ka soo jeeda ee magaalo madaxyada kala fadhiya waaye inagoo joogno gabagabadii barnaamijkeena ama waraysigeena Faysal Cabdi Roble waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ugu dambeyntii iyadoo lagu jiro bil Ramadaan oo ummadda islaamku ay maanta wada sooman yihiin runtiina ay noqotay dagaalada Tukaraq ka dhacay in geestay doonto waxa noqotay ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba ay aad uga xumaadeen oo ay doonayaan inay muuqato rajo nabad iyo walaalnimo bishaas soon iyo ka badanba lagu wada joogo maxaad u soo jeedin lahayd adigoo ah nin aqoon-yahana siyaasadda geeska Afrikana aad uga faallooda adigoo aan dhinacaba eegin sida ay u saameynayso dagaaladaasi ummadda islaamka ee itaalka daran ee abaare ka soo gudubtay ee dagaalo sokeeye ka soo gudubtay maxaad u soo jeedin lahayd oo aad ku oran lahayd kelmadaada caliyow dagaalkan maanta ka qaxay waqtigan foosha xun oo ummadda inay cibaadaysato iyagoo u diyaar garoobay dhiig iyo dab lagu shiday
waxa kow ka ah waxay ku tusaysaa caliyow isbedelka weyn ee ku timid ummadda Soomaaliyeed. waxaan u malaynayaa 1963 bay ahayd ummadda Soomaaliyeed iyadoo sooman oo election u diyaar garoobaysa inay dagaal wala ajnabi amxaarada ay la dagaalamayeen, dagaal xariir ah oo nadiif ah oo janno lagu tagayo aha. kan maanta dadka abaabulay dagaalkan labada dhinacba runtii allana way ka fogaadeen. dambi mooye wax uga kordhayaana ma jiro, innaba wax uga kordhaya ama Soomaali ahaan ha noqoto ama islaam ahaan ha noqoto. adaa sheegay kaliya waxa weeye dagaalkani waqti xun buu ummadda ugu yimid. waxaan jeclahay oo kaliya toon caliyow inuu ka dhamaado ummadda inta aan ciida fitri aan la gelin, si ciyaalkooda ay dharka cusub u geliyaan oo ciyaalku u ciidaan oo masaajidada iyo banaanada lagu soo tukado. arrintan oo aan u malaynayo inay aad meel fog ka imanaysana oo ah ishardigii Soomaaliya ka dhacay iyo dib u raadinta recognition. waxaan odhan lahaa arrimaha dib ha loo dhigo. in fact cali recommendationska aan maqaalkayga insha Allah soo bixi doonaa aan ku daray waxa weeye in chance loo helo in dadka dawliga ka baxsan ama Puntland ha noqoto ama dawladda Muqdisho ha noqoto ama Hargeysa ha noqoto, laakiin social groupska dadka nabadda jecel, dadka isdalay, dadka suxufiyiinta in loo sameeyo forum iyo meel ay ku wada hadlaan ugana munaaqashoodaan arrimaha nabadda, wada noolaashaha iyo dib isku tolidda ummadan meesha ku wada dhaqan. xalka fogna hadhow sidii ay u hiigsan lahaayeen iyo ka wada shaqeeyaan, lagana saaro dadkan danaystayaasha ee magaalo madaxyada kala fadhiya. marka waxaan u ducaynayaa dadkii dhintay oo aad sheegtay 100 hadda kor u dhaafay. waxaan alla ka quudayaa intaan ciidu gaarin in dagaalkaasi inaga joogsado, madaxda meesha joogtana ilaahay niyadda ku soo celiyo. aamin. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Faysal Cabdi Rooble ayuu kaasi ahaa. daawadayaal aqoon-yahan dhinaca siyaasadda Soomaalida inta badan ama geeska Afrikaba ka faallooda Los Angeles California ayuu khadka telefoonka igu warramayay. halka waraysigan aan idinka soo gudbinaynaa waa madasha 60 gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa anigoo Ali Xaraare aan idinka soo gudbinayaa waraysigan. tan iyo kulankeena dambe